wanaagsan daawadaya saacadu waa 2:16 daqiiqo xilliga geeska Afrika qodobada ugu waaweyn ee warka channelka xusuus joog meediyana waxa kamid ah qofkii labaad ee qaba cudurka coronavirus oo laga helay magaalada Muqdisho ciidanka dawladda oo sheegay in gobolka Bay ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo kulan la qaatay Danjire James Iswan Soomaaliya oo gaartay heerkii looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay haddaba maxaa laga qariyay shacabka Soomaaliyeed iyo guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed oo guddoon cusub doortay intaas aad maqasheen waxay ahaayeen daawadayaal qodobada ugu waaweyn ee warka channelka xusuus joog media halkani waa channelka xusuus joog media fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka waxaan ka dalbanaynaa inaad subscribe inoo saarto gambaleelkana aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela macluumaadka iyo warbixinada aan bartaan soo gelino mar waliba inagala soco xusuus joog media iminkan waxaad ku soo dhawaataan isagii oo intaas ka faahfaahsan wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Fawsiye Abikar Nuur ayaa shaacisay in magaalada Muqdisho laga helay qofkii labaad ee qaba cudurka coronavirus ee ku baahay caalamka shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada Muqdisho ayay maanta ku shaacisay in qof Soomaali ah oo ka yimid dalka dibadiisa kadib markii baaritaan lagu sameeyayna laga helay cudurka COVID-19 waxa ay sheegtay in qofkaas uusan jirkiisa ka muuqan wax calaamado ah si yeeshay wasaaradda caafimaadka ay muwaadinka Soomaaliyeed ay gacanta ku hayn doonto ilaa inta uu ka caafimaadayo inkastoo wasiirka caafimaadka Soomaaliya si rasmi ah u shaacin halka uu ka yimid muwaadinka Soomaaliyeed asi yeeshay wararka qaar oo aynu helayno ayaa waxay sheegayaan in qofkaasi uu ka mid ahaa dhalinyaradii saraakiisha ciidanka ahaa ee tababarka u aaday Talyaaniga oo dhawaan dalka dib ugu soo noqday gaar ahaan magaalada Muqdisho 16 bishan ayaa wasaaradda caafimaadka waxay shaacisay in qofkii ugu horeeyay cudurka coronavirus laga helay Muqdisho kaas oo ka mid ahaa 4 qof oo ka yimid wadanka Shiinaha Soomaaliya ayaa gaartay heerkii looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay haddaba maxaa laga qariyay shacabka Soomaaliyeed warbixintan ayaynu idinku haynaa ugu horeyn ra'iisul wasaare Xasan Khayre oo xalay la hadlay saxaafadda waxa uu ku faanay in maamulkoodu uu gaaray guusha deyn cafinta mid cusubna qaadan karaan taas oo uu la barbar dhigay xorriyadii isaga oo yiri haddii dal walba oo dariska lagu leeyahay balaayiin dollar innagana maanta aan taaganahay inaan wax walba nadiif ka noqonay dhankiisa wasiirkiisa maaliyadda Bayle ayaa maanta ka gabiyay deyn cafinta waxa uuna sheegay in la soo gabagabeeyay inta aanan u galin qormadan waxa muhiim ah in aad ogaato in aanan marnaba yareysanin shakhsi ahaan iyo hay'ad ahaanba heerka uu dalkeena ka gaaray deyn cafinta laakiin Xasan Cali Khayre oo carabka ku adkeeyay in Soomaalida ay ku kalsoonaadaan madaxdooda waxa uu ka qariyay 3 xaqiiq kow in hanaanka deyn cafinta uu socday 8 sano siina socon doono intaas oo kale labo deyntii lama cafin ee waa ay nusqaantay oo waxa la magay lacagtii ay nagu lahaayeen IMF World Bank iyo AFDB oo kamid ah 5.2 bilyan oo dollar oo Soomaaliya lagu lahaa 3 deynta ay Soomaaliya qaadan karto waa ku meel gaar oo imtixaano kale ayaa u dhiman oo ugu yaraan 3 sano qaadanaya halka aanu jirin dal darisnala ah oo xaaladaas abid soo maray haddaba halkan ku ogow 5 su'aal oo jawaabo u baahan kow maxay tahay deynta la cafiyay bixinta arreeyas waa tallaabada koobaad ee deyn cafinta taasi oo ah in la tirtiro lacagaha ay Soomaaliya ku lahaayeen hay'adaha lacagta tusaale ahaan IMF oo Soomaaliya ku lahayd ilaa iyo 334 milyan waxa qaybsaday ilaa 100 dal World Bank oo Soomaaliya ku lahaa 366 milyan waxa magtay Norway halka bangiga horumarinta Afrika oo ku lahaa Soomaaliya 122 milyan ay bixiyeen UK iyo midowga Yurub labo sidee loo gaaray decision point arrinta ah gaarista decision point waa dadaal soo socday sida aan sheegnay 8 sano oo ka soo bilowday dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyada oo dib ugu soo celisay hay'adda lacagta adduunka IMF oo waliba la gashay heshiiskii article 5 oo suurto geliyay inay IMF Soomaaliya ka saxiixato heshiisyada SMB iyo deyn cafiska decision point micnaheedu waa in aan deyn ku meel gaar ah ka qaadan isla hay'adihii hadda uu deyntooda la magay ee IMF World Bank iyo AFDB su'aasha saddexaad sidee lagu gaarayaa completion point tallaabada xigta
waa completion point oo socon doonta ilaa 3 sano. waa imtixaano cusub. waxaa Soomaaliya laga rabaa inay dhinto faqriga iyo dadka saboolka ah oo ay la timaado barnaamijyo kor u qaadaya nolosha muwaadinka. waa hanaan kale oo adag oo ay muhiim tahay dakhli ururinta iyo isla xisaabtan la kordhiyo iyada oo dalka la sii qiimeyn doono. 4 deyn kale miyaa nagu hartay. deynta hadda la magay sida aan sheegnay waa deyntii IMF, World Bank iyo AFDB. waxaa Soomaaliya ku haray in ka badan 4 bilyan oo ay ku leeyihiin labada naadi ee Paris Club, nan Paris Club iyo hay'ado kale. waxaa kale oo aanay dawladdu sheegin halkee la geeyay deyntii ay nagu lahaayeen hay'adaha Arab Monetary Fund, OPIC Fund for Inter-Development, Nigeria Trust Fund, Islamic Development Bank iyo qaar kale. Paris Club waxaa deyn nagu leh dalalka Denmark oo 2 milyan leh, Faransiiska oo 484 milyan leh, Talyaaniga oo 600 milyan ku leh Soomaaliya, Japan oo 96 milyan, Holland oo 6 milyan leh, Norway oo 2 milyan, Spain oo 40 milyan leh, UK oo 81 milyan, USA oo 104 milyan iyo Ruushka oo leh 148 milyan. nan Paris Club waxaa deyn nagu leh dalalka Algeria oo 2 milyan leh, Bulgaria oo 12 milyan leh, Iraq oo 58 milyan, Kuwait oo 171 milyan, Libya oo 5 milyan, Romania oo 3 milyan, Sacuudiga oo 109 milyan leh, Serbia oo 2 milyan leh iyo Imaaraadka oo nagu leh 256 milyan. haddaba waxaa adag in xal laga helo dalalka dambe ee nan Paris Club, laakiin kooxda hore waxaa lagu wadaa in deynta Soomaaliya ay ka shiraan 31 bishan iyada oo la filayo in war fiican ay sheegaan lagana yaabo in 50% ay cafiyaan. waa haddii loo magayo inta kale waqtiga ay Soomaaliya qabsato inay ku bixinayso sanadaha soo socda. su'aasha ugu dambaysa ka waran haddii deyn kale qaataan. mar haddii la ogolaaday in Soomaaliya qaadan karto deyn ku meel gaar ah, khubaro dhaqaalaha waxa ay ka cabsi qabaan in maamulka hadda jira ee Farmaajo oo ay doorasho ku soo socoto iyaga oo ka faa'iideysanaya xamaasadda deyn cafinta ee ay suuq geeyeen ay qaadaan deyn cusub oo ka badan midii la cafiyay, taasi oo abuuri karta kalsooni darro kale. sidaas daraaddeed waa in dawladda lala shaqeeyo sidoo kalena isha lagu hayo talaabooyinka ay qaadayso. waa hagaag daawadayaal, wali waxaad daawanaysaan wararka janalka xusuus u joog media qaybaha dhexe ee warkana waynu ku guda jirnaa. markaana ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in gobolka Bay ay ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. taliska ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ay sheegeen in deegaanka Daynuunay oo qiyaastii 18 kiiloomitir u jirta magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ay ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib markii halkaas ay ku dagaalameen. taliyaha qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeye Guuta Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in 12 dagaalame oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ay ku dileen dagaal ka dhacay deegaanka Daynuunay ee gobolka Bay. taliyaha ayaa xusay in ciidanka xoogga dalka ay ka warqabeen weerarka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen isla markaana ay ka hortageen haatan ay iska caabiyeen dagaalamayaasha weerarka ku soo qaaday sida uu hadalka u dhigay. dhinaca kale war qoraal ah oo ka soo baxay Al-Shabaab ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in dagaalkii Daynuunay ay ku dileen 4 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka. ma jiraan ilo kale oo ka madax bannaan labada dhinac oo xaqiijin kara khasaaraha ka dhashay weerarkii shalay Al-Shabaab ay ku soo qaadeen fariisin ciidanka dawladda ay ku lahaayeen deegaanka Daynuunay ee gobolka Bay. wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliyana waxa uu kulan la qaatay danjiraha lagu magacaabo James Swan. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad ayaa xafiiskiisa magaalada Muqdisho waxa uu kulan kula qaatay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ee danjira James Swan. war ka soo baxay xafiiska wasiir Cawad ayaa waxa lagu sheegay in kulanka looga hadlay sidii wada shaqeyn wanaagsan ay u dhaxmari lahayd dawladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adda qaramada midoobay isla markaana loo xoojin lahaa iskaashiga labada dhinac. dhinaca kale kulanka labada dhinac ayaa lagu soo hadal qaaday sidii looga shaqeyn lahaa howlaha dib u heshiisiinta qaran iyo wada hadalka siyaasadeed ee dhinacyada Soomaaliya si loo gaaro nabad waarta. qaramada midoobay ayaa waxa ay ka mid tahay hay'adaha sida dhow ula socda guud ahaan siyaasadda Soomaaliya iyadoo sidoo kalena taageero kala duwan u muujisa. ugu dambeyntiina guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa guddoon cusub doortay.
magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa maanta kulan ku yeeshay guddiga diyaarinta doorashada guddoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed iyaga oo kulankooda ku doortay gudoomiye iyo ku-xigeenkiisa. Kulanka oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha ku-meel gaarka ah ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xubnaha guddiga oo ka kooban 15 xubnood waxa ay gudoomiye u doorteen Cusmaan Buule Macallin. Gudoomiye ku-xigeenna waxaa loo doortay Shukri Cumar halka xogayaha guddiga loo doortay Xildhibaan Injineer Ibraahim. gudoomiyaha guddiga ku-meel gaarka ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Nuur Albaro ayaa sheegay in guddiga uu hor yaalo qabanqaabada doorashada guddoonka baarlamaanka iyo diiwaangelinta musharaxiinta iyo howlo kale. waa hagaag daawadayaal intaas waxaa ku dhan warkii aad kala socoteen channelka Xusuus u Joog Media. intaan warkiisa xiga ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.